الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. haddaan ku bilaabo sadaqada la bixiyo bisha soon maxay dheer tahay sadaqooyinka kale. culummadu waxay dhaheen acmaasha bisha soonka la sameeyo acmaashoo dhan markaan dhahay waxaan ula jeedaa sadaqa, salaah, dikr, qur'aan, nooc kasta oo camal ah oo qofka mu'minka uu sameynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaadka acmaashaasi uu badinayaa marka loo fiiriyo bilaha kale. idan marka sadaqada waa laba nooc, waa zako oo waajib ay tahay oo arkaanul islaam oo fi suurati tawba ilaahay inama sadaqaat markuu ka sheekeynayo dadka la siinayo meesha uu ku xusayay asnaaf loogu talagalay zakada inay qaataan. zakadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay qofka inay daahirinayso, dembigay ka tirtiraysaa. culammada qaarkan waxay leeyihin maalka qofka uu leeyahay zakada maalka laga bixiyey ayaa wuxuu noqonayaa maal nadiif ah, zakadaa daahirinayso. sadaqada oo zakada aan ahayn, baahida hadba sadaqadaasi loo qabo ayaa waxay keenaysaa sadaqadaasi inay culays gooni ay lahaato. mathalan hadda waxaan soo sheegnay dhowr mer ama aniga ama culammada kale ay ku celceliyeen 5 masaajid oo baahi degdeg qaba. 5taasi masaajid mortgages ayaa qaarkood lagu leeyahay, qaar kalena waa diman yihiin. waa baahi degdeg ah oo hadda taagan, maanta la raba in la bixiyo. laakiin ahlul masaajid, dadkii maamulka hayay ee dadkii masaajidkaasi gacanta ku hayay ma hayaan lacagtii, laakiin waa baahi taagan. baahidaas yaa la rabaa inuu daboolo qofka muuminka oo ka war helo. haddaad ka war hesho baahidaas inay taagan tahay, iimaanka aad leedahay oo aad rumaysan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, iimaankaasa ku dhaqaajinaya. markaas gacantaada jeebkay aadaysaa, way dhaqaaqaysaa, talaabay qaadaysaa. lidaalika axad min alculamaa ayaa waxaa la weydiiyey su'aal ah, sadaqada maxaa loogu bixiyey sadaqa? sadaqada maxaa loogu bixiyey sadaqa? uu ka jawaabay marka wuxuu dhahay innahaa sadaqadii uu ka hadlayo bixinteeda oo qofku markuu bixinayo tu'akkidu waxay muujinaysaa ay adkaynaysaa sidqu iimaani, tu'akkidu sidqa iimaani, iimaanka uu leeyahay inuu ka run sheegayo ayaa waxaa muujinayo ficilkaas sadaqada uu sameynayo. lidaalika culammada waxay dhaheen hadday arrintu saas tahay oo sadaqada bixinteedii ay muujinayso qofka iimaankiisii, xadiiskan wuxuu leeyahay sadaqada waa burhaan. waxaa loola jeedaa burhaan iyadana waa tanay la macno tahay. burhaan waaye oo waxay tusinaysaa ee muujinaysaa qofkan sadaqada bixinaya iimaankiisa. marka dadka sadaqada aan rumaysnayn ama dadka sadaqada waa rumaysan laakiin iimaankoodu daciifka ah ma ku degdegaan, way ku adagtahay inay sadaqa bixiyaan. culummada waxay dhaheen qofka huba ilaahay xaggiisa inuu wax yaalo oo markuu bixiyaba la siinayo, qofka sidaas aaminsan waxba ma reebanayo. dadka marka waa 3 nooc waay. dadka sadaqa markay timaado waa 3 nooc. qofna waa darajada ugu sarayso oo ilaahay qur'aanka uu ku sheegay wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. isagoo u baahan maalkii ehelkiisii isagii naftiisu dhaafinaya. marka kuwaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ammaanay, waa ahlul iithaar ayaa la yidhaahdaa.
naftoodii iyo ehelkoodii waxay ka hormariyeen dadka kale ama masaajid ha ahaado waa qolada ugu sarraysa waay waxaa la yidhahdaa taas culammada waxay yidhahdoo dadka iimaankooda uu sareeyo waa dadka ambiyada oo kale dhaqankooda leh ama awliyada ilaahay ah gruubka labaad waxa waaye waxa ay haystaan ay fiirinayaan markaasay kala qaybinayaan nusna waa bixinayaan nusna ehelkooda iyo naftooda ay u reebayaan gruub kalaa jira oo saddexaad oo mu'miniinta ka mid ah iyaga waxa waaye maalka ma kala qaybinayaan wixii ka soo haray sadaqaysanayaan haddaan wax ka soo harin ma sadaqaysanayaan waa kuwa ugu liito waay qiso waxaa jirta oo run ah oo ummadihii hore laga soo guuriyey nin asoo waddada maraya wuxuu arkay daruur socota oo roobaysan manaa daruur biyo xambaarsan oo hadlayso wuu yaabay marka daruurtaas waxaa ka soo baxay hadal ah waxaad ku da'daa beerta hebel beerta hebel ina hebel ninkii maqlaya oo dhulka socda wuu yaabay wuxuu yidhi waxaan go-aan ku gaaray daruurtaas inaan raaco ilaa meesha ku da'aysa aan hubsado daruurtuu raacay wuu daba socday beeray dul istaagtay markaasay daadisay biyihii allahu akbar halkan waxaa ka cad marka kownka adduunka waa la maamulaa allah ayaa maamulo waxa uu sameeyo keliyaa dhacayo roobka asaa sii daayo asaa cishada ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ninkan roobka waxaa loogu soo daayey sadaqo u bixi darteeda bal fiir waxa dhici doono markii biyaha roobka meeshuu ku da'ay isla markii ninkii wuxuu dhahay waxaan dhex wareegay waxaan raadiyey saaxibul maaragtay alxaa'id ninkii beerta laha uu raadiyey wuu helay wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu wuxuu yidhi walaalo magacaaga maku weydiin karaa wuxuu dhahay magacayga maxaa ka rabtaa markaasaa wuxuu yidhi waxbaan rabay inaan ku weydiiyo laakiin magacaagaan raba inaan ogaado wuxuu yidhi magacaygu waa hebel ibna hebel wuxuu yidhi allahu akbar ninga waa karaamaysan tahay wuxuu yidhi sidee ku ogaatay inaan u karaamaysnahay wuxuu yidhi waa soo socda waddaas ka soo maraya daruur dusheeda socotaa qaylisay hadalaan ka maqlay oo ah waxaad ku da'daa oo keliya beerta hebel intaasoo beer inay soo dhaaftay beertaada keliya ku da'day markay si fiican u roobaysay daruurtii way baxday koray ku laabatay markaasaan la yaabay niyow ma ii sheegi kartaa waxaad samaysay oo darajadan aad ku gaartay in magacaaga kor laga sheego in daruurihii lagu amro niyow maxaad samaysay wuxuu yidhi waxaan sameeyey dad inay ogaadaan ma rabo niyow aan waxbaan ka ogaaday waa kuu ballan qaadaya wax ku dhibaya ma samayn doono walaaloo ii sheeg maxaad qabataa markaasaa wuxuu yidhi marka hadday saas tahay oo aad wax ka soo ogaatayba ilaahay uu kashifay waxaan sameeyaa marka beerta ay soo go'do saddexaan u qaybiyaa uu yidhi marka ugu horeysa waxaan ka bixiyaa xasaadkii ilaahay qur-aankuu ku sheegay sakadaan ka bixiyaa marka hore 3 meelood u qaybiyaa hal meel sadaqaan ka dhigaa dadka masaakiinta iyo dadka baahida u qabay iyo meesha sadaqada loogu talagalay aan ku bixiyaa labaas waa hartay hal qayb wuxuu dhahay masaariifta faamilkan ka dhigaa qoyskayga aniga caruurteyda iyo xaaskayga qayb kale wuxuu yidhi beertaan ku celiyaa marka saasaan u kala qaybiyaa marka qofkaasi 3 u kala qaybiyey marka ahlu khayrka noocyadaas waa marka iimaankaagu adaa iscabirayo lidaalika ninka caalimka ahaa micnaha sadaqada marka la weydiiyo wuxuu yidhi innaha tu'akkidu sidqa macnaa sidqa aliimaan sidqa iimaana saaxibi qofka sadaqada bixinayo iimaankiisa waxaa lagu cabirayaa hadbo intuu sadaqada bixinaya intii la egtahay yaraanteeda hadduu qofka u bixinaynin lidaalika waxaa yidhi 2 malag ayaa soo degta waa maalin kasta waay nebigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam midna waa duceeyaa midna waa inkaartamaa
kan duceeye wuxuu leeyahay allahuma acطi munfiqan khalafa ilaahu kan wax bixiyey markiiba gadaal ka sii waana aayad qur'aan la socda wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wahuwa khayru raasiqiin ilahi wuxuu leeyahay waxaad bixisaan oo sadaqa ah ama noocii doonta ahaato wixii idinka baxo culamo qaarkeed waxay ka dhigaan caam waxaad leedahay aad bixiso fikraad dad ugu deeqi kartaa xoogaaga dadka ugu deeqi kartaa lacagaa dadka ugu deeqi kartaa wuxuu doonaa aado waxaad bixiso ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu bedelayaa fahuwa yukhlifuh waxaana shaki ku jirin inuu ilaahay kuu bedelayo qisaan soo dhex gelinaya labada malag aan dhameeyo midna waa ducaynaya wuxuu leeyahay allahuma acti munfiqan khalafa ilaahu kan bixiyey gadaal ka sii saddex midkoodaa dhacayso waa soo sheegay xalay bacdula'ima waxay yidhahdeen tafsiirka xadiiskan iyo axaadiis kale ama markiiba sadaqadii wuxuu bixiyey wax ka badana gadaal laga siinaya sheekadii xalay imaam xasan basri waa ka sheekeenay 9 ukun uu bixiyey maalinta ku xigtana 9 ukun loo keenay ama masiibo kugu soo socotay sadaqada lagaaga celinaya coronavirus iyo xanuuno kale oo magaalada wareegayo gurigaaga oo dhan ilmahaaga waa laga xijaabaya sadaqada kugu wareegsan haddaad banaanka baxdo iyo haddaad joogto haddaad soo adeegato haddaad seexato haddaad ciyaarto waxay doontaa ahayd waxay marnaba kuma taabanayo cudurkaas marka masiibaa lagaaga celiy soo ma jeed mid istaad xeleen culummada markaad adduunka ka tagto ayay sadaqada ku badbaadinaysaa kasoo 3 marxaladood oo markaad adduunka ka tagto malakul mawtku markuu ku imaanayo sadaqadu arkaya markuu arko buurnideeda waxaa la leeyahay urfuq hada kan u naxariiso allahu akbar waxaa la leeyahay kan u naxariiso sadaqadan u baxsaday u hormarsaday u naxariisaa la leeyahay urfuq waxaa kaloo suurtagal ah oo qofka walaala wuxuu soo qoray su'aal inuu qabo waa fiirinaa walaal iska soo qor su'aashaada haddaan ka jawaabi karana ka jawaabaynaa haddii kalena lambar haddaad tahay reer minnesota ama reer maraykan lambarkaaga ii soo qor iyo telefoonkaaga su'aashaada markaasi waa kaaga jawaabayna insha allah hadduu ilaah yiraah marka aan dhamaystiro haddii qofkii sadaqadii waxaa dhahay 3 midkooday noqonaysaa natiijadeeda haddii ikhlaas ay kaa tahay markaad bixiso ama markiibaaba lagugu bedelayaa wax ka khayr badan oo wixii aad bixisay wax la mid ah wax ka khayr badan loo jeedaa sababtoo ilaahay markuu wax bixinayo bini'aadku wuxuu markuu wax bixinayo isku mid ma aha ilaahay wax ka badan waxaad bixisay ku siinaya markiina lagu siinaya ama masiibo kugu soo socoto markaas aa lagaa celinaya ama midda saddexaad maxaan dhahnay adduunka markaad ka tegaysid oo laga bilaabo markii malakul mawtku ku yimaado meesha ka bilaabmaysaa raaxadada runta ah waxaa leeyahay urfuq hada fiiri sadaqadiis u naxariisa kan haddana qabriga markaad gasho sadaqada kaaga horeysa waxyaab badan aad arkaysaa dadkaa kaa tegey wax qurux badanaa meesha kuu fadhiyo bini aadan muuqaalkiis oo qurux badan oo carfaya waa camalkii saalix ah culummada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiis ayaa jira oo dhahayo asadaqa sadaqada tadfacu waxay kaa reebaysaa xara alqabr xara alqabr qabriga kuleelkiisa idan marka sadaqada waxay kaa reebaysaa dhibka qabriga markii qubuurta laga soo baxayo gacantii ku qabanaysaa hoosay ku furiisanaysaa almar'u yastadilu bidilli sadaqati nin ayaa gas station nin sheekhaa sheekadan ka dhegaystay sheekhaan ka dhegaystay wuxuu ii sheegay ama wuxuu noo sheegay isaga dhegihiisa inuu ku maqlay ruuxii qisada ku dhacday gadaalto aad tirin kartaa waxaa dhihi kartaa sheekh xasan sheekuu ka maqlay si toos ah oo u sheegay ninka qisada ku dhacday ninka qisada ku dhacday wuxuu leeyahay aniga xaaskayga ilmahayga waxaan ka tagnay sacuudiga damaam
aan maraynay riyaadaan u soconnay damaan markaan maraynay qof ayaa wuxuu i weydiiyey haween oo ilmo aad baahi ka muuqato la socotay ayaa waxay weydiisatay sadaqa waxaan gaaska ku shubay maahine meesha gaaskaan joogay gaaska waxaan ku shubay maahine 170 inay ay hartaan qiyaasay uu yiri qiyaas saasay ahayd in accountigay ku hartay 70 aan siiyey haweentii waxaan dhahay waa lacag fiican waa ahayd oo dhahay oo riyaal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu barakeeyo waa ii ducaysay wax ka badan oo baraka la ilaah ku siiyo marka aniga maskaxda waxay ugu jirto 70 aan iyada siiyey iyo ilmihii la socday oo 100 accountiga igu hartay wuxuu yiri laakiin waa khaldamay laakiin ma ogeyn arrintaas oo dhan ilaa riyaad aan ka tegay markaan riyaad tegay oo gas station aan tegay oo aan rabay inaan la soo baxo $100 saan gaas ugu gato raashin $100 iyo raashin iyo waxaan u baahnayn meesha waaba eber wax kuma jirto madaxan gacanta saaray waa naxay markaan naxay waxaan dhahay ilaahow waxaan u maleeyay inay lacag meesha ku harsaneed adaana dhahay wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuh waxaad bixisaan oo sadaqa ah ilaahay isagaa ah kan gadaal idinka siinayo ilaahuma gadaal iga siisid ilaahu cid wax ma weydiisan kari cid aan la xiriira ma laha go'doonaan noqday ilaahan u sheegtay ilaahan telefoon u dirsaday markiiba dabeela kacduu dhahay ninkaas wuxuu ka sheekay qiso cajiib badan laakiin ahlul iimaan oo rumaysanayn qisadaas dabeela kacday meeshii anoo taagnuu dhahay baraankaa taagnahay ilmaha baabuurkay ku jiraan dabeesha waxay qaaday xaanshooyinkii way wareeganaysaa xaanshiyaalkii markaasoo horteeda xaashaa ku wareeginaysu dhahay maxaa waaye u dhahay waa 500 oo riyaal waa soo qabtay waa 500 oo riyaal waa 500 oo riyaal allahu akbar aan dhahay fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas dartiisa sadaqa u bixiso oo meel baahan aad ku rido ilaahay subxaanahu wa tacaala markiiba wuu ku jawaabaya ilaahay kuma dayacayo waxaa dhacday nin kale qiso kaloo cajiib badan haddaad business leedahay qisadan ka faa'iidayso sadaqada bixi 5 masaajid furo 5 masaajid oo deentooda hadda ay taagan tahay furo shaashaday ka muuqataa $100 500 kun waxaad bixin karto waxa laga hadlayo waxa waaye 16 kun oo lagu leeyahay 16 kun oo bishii hore oo deen lagu qaaday iyo 16 kun oo bishaan oo lagu leeyahay masaajidka xikma masaajid la gaday oo furihiisa u xayiran $60 kun waa masjid ramadaan waa kaniisad waaye kaniisadaasi hadday gacanteena ka baxdo waana masaajidka ugu horeeyay oo xaafad magaaladaas laga furayo waa magaalo dhan oo masaajid aan lahayn waa St. Louis Park waa masjidka ramadaan masaajidka kale waa daarul culuum waa la gaday lacagtii waa la wada bixiyey 70 kun oo deen hore lasoo qaatay ayaa duu ah hadda la iska rabaa markas oo ilmaha iyo dhalinyarada qur'aanka lagu xifdisiiyo qiraa'aadkan lagu barto oo ahlul qur'aan wa khaasatuhu sida rasuulku uu yiri dadkii gaarka ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala doortay laga meeshii oo ay ka soo baxayeen 13 kun oo deen 13 kun deen oo jaara lagu leeyahay masjid dacwa 17 kun bil walba utilitieska wixii way ku jiraan laakiin 6200 waa mortgage-ka oo deenta ah oo bil walba ah intaas caawa waxaad ka bixin kartaa ka bix maanta bish waa 29 beri waa 30 bishii koodeeda waa laga rabaa masaajidahaas ilaahay leeyihiin laakiin ilaahay dad soo dirsanaya haddaad rumaysan tahay sadaqada iyo mucjizooyinka hadda aan sheegay bix xaafad ayaa tacsi gashay nin oo iska ladan laakiin businesskiisu ku baaray ayaa tacsi yimid ninkaas business uu leeyahay laakiin mushkilada ka jirta businesskiisa muddo sanad ah bakhaaradiisa cid u timaado oo wax ka qaato uu waayo Soomaalidu waxay dhahan wuu baaray
wixii u yaalay oo dhan badacooyinka u yaalay maxaa dhacday mucjizaa dhacday waxaa dhacday markii tacsida u yimid ayaa wiilkii ugu weynaa dhinacu ula baxay wuxuu dhahay aabba ilaah u naxariisto aamiin u dhahay wiilkii wuxuu dhahay wax deen ah oo lagu lahaa maa jiro fiir ninkan meeshuu wax ka soo raadiyey nin sheeqa wuxuu kasoo maqlay kurbo dad haysata haddaa kurbada ka qaado ilaahay markiiba kurbada uu kaa qaadaya wiilkii oo weynaa wuxuu dhahay haa aabba deenaa lagu lahaa laakiin lacag badan waa wuxuu dhahay may dhib ma laha ii sheeg anaa qaadanayo xabadka uu u tuntay sidii soomaalida dhahaan markaasaa wuxuu yiri maya iska daa waa mahadsan tahay aniga iyo wiilasha iyo qaraabada waxaan raadin karnaa raadinaynaaye wax la qaadan kara malaha deen culus waa dhib ma lahu dhahay ii sheeg waa ku baryaya uu u sheegay wuxuu dhahay waa 100,000 wadamada carabta waa lacagta carabtay ahayd san qiyaasayo ma xusuusto qisadan mar horaa maqlay 100,000 markuu dhahay warqadda wuxuu ugu qoray 100,000 waxaa qaatay oo berita bixinayo say u wada dhan tahay aniga oo ah fulaan ibnu fulaan allahu akbar wiilka indhihiisii ilan ayaa kasoo buuxsantay waad ogtihiin qofka hadduu dhinto oo deen lagu leeyahay camalkiisa noocu doona ha ahaado ficnaantiisa intuu doona ha gaaro lama rafcinayo waa xayirnaanaya diintaas u xayirnaanaya kor buu qaaday wiilkii indhihiis waxaa kasoo buuxsantay allahu akbar ilin oo farxadeed ilmihii uu sheegay kulli waa la wada farxay ninkii waa baxay ilaahay subxaana watacaala kuma sugaayo ilaahay waa dedejiyaa khayrka haddaad khayrka dedejiso ilaah wuu kuu dedejiyaa waa baxay ninkii lacagtii soo qaaday wuu bixiyey waxaa yaab lahayd isla subaxdii waxaa la soo xiriiray intaasoo kambaniye ah wax la soo diray oo kale wixii badeecada yaalay oo dhan ayaa la qaatay wuxuu faa'iiday 400,000 100,000 wuu bixiyey 400,000 maalintii ku xigtay waa tijaara maca allah sadaqada la bixinayo waa tijaara maca allah dad sadaqada bixiyo oo hoos ka bixiya ogaanaya arrintan walaalayaal bisha ramadaana lagu jiraa wax sadaqaysta ilaahay subxaana wa tacaala anagaa u baahan wax walban isagaa hayo qasanadihiisu way buuxaan lilaahi mulku samaawaati waalard wallahi ilaahay subxaana wa tacaala waman asdaqu min allahi qiila ilaahay waadarkiisu dhan waa wada run waa rumaysana haddaan rumaysanta isagaa ballantaas qaaday fahuwa yukhlifuhu xadiiskan dib ugu noqonaya yanzilaani malakaani maalin kasta laba margaa soo degeyso maalin kasta waa fi kulli yowm midna wuxuu leeyahay allahuma acti munfiqan khalafa ilaahu kan sadaqada bixiya gadaal ka sii kan kale muxuu leeyahay allahuma acti mumsikan talafa kan ku dhegay isagoo haysto awood u lahaa inuu bixiyo talaf ka dhig maalkiisa baabi'i wuxuu leeyahay baabi'i baraka la'aan noloshoo dhan waa dad lacago badan haysto maarag oo markaa weydiis ku dhahaya wallahi wax ma haysto saasuu ku leeyahay anaga nin aan ka naxnaya jirto dukaan u buuxo aan u tagnay anagoo masaajid markaasi khatar oo masaajid ku dhawaa inuu xirmo marka aniga waxbaan ka hogaaminaya culumadii hogaaminaysaan ku jira marka businessyada la galgalaya business u buuxaan galnay ninka wuxuu ku dhaaranayaa wallahi billahi tallahi anaa wax u baahan ani waa xishooday marka waxaan dhahay businessyada marka waxaan dhahay 100 ilaa 500 masaajidaa xirmi rabo markaas aniga wax ma u baahan tahay haa waxay u kaadaan dhahay banaanka u baahan nimankii ila socdo waxaan dhahay ninkan wax uu u baahan yahay maadaama sadaqada oo anaga ururinaynay oo baahi darteeda u soo ururinay masaajid u baahan ninkan uu baahan yahay u dhiban yahay ma wax siin ninka wuxuu dhahay maxaa dhacay maxaa u wada hadlaysaa marka waxaan ka hadlaynaa haddii aan wax kaa siin karno sadaqadan maadaama aad baahan tahay dukaanka uu buuxaa marka waxaa loo jeedaa dadka qaarkooda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku imtixaanayaa faqr bayna caynayhim indhahooda dhan waxaa u muuqda dhaqaale iyo raaxada maalka iyo ghina nafsi iyo
waxaasoo dhan waa laga xayuubiyey tawfiiq la'aan waa ilahan kama galnay dadna wax ma haystaan waa iska faraxsan yihiin maxaa dhacay waxay haystaan horey ka bixinayaan kuma raagaya xitaa waa dariiqadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan kusoo gebagabeynayaa laba qisoo cajiib badan oo sadaqada la xiriirta horta haddaa rabto ilaahay inuu kugu dilo kelimad iyo waddo khayr iyo inuu ku waafajiyo camal khayra inaad samayso markaad sii dhimanaysid ogow sadaqa bix ama camal khayr ah samee waa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay sanaa'ic almacruuf qofka macruufka sameeyo wanaagga sameeyo khayrka ka shaqeeya sadaqada bixiyo oo dadka wax tara maaragtay maskaxdiisii xubnihiisii xooggiisii lacagtiisii ummaddaas wax ugu qabanayo taqi masaaric assuuq wanaaggaas iyo khayrkaas uu sameeyey ayaa waxay kor istaagaysaa in si xun oo khaatimo xun uu ku dhinto culamadu waxay leeyihin xadiiska tafsiirkiisa qofkaasi ilaahay wuxuu waafajinayaa camal khayr badan inuu sameeyo intuusan dhiman markaas wuxuu ku dhimanayaa camalkaas khayrka badan waa tafsiirka waa intaas isla xadiiska wuxuu leeyahay wasadaqatu sir sadaqada la siraysto oo qofka bixiya iyadoon dadka aysan u jeedin sadaqadaasna tudfi'u ghadab arab haddii ilaahay uu kugu caraysnaa dembi aad ka gashay darteeda ama gaabin aad samaysay darteeda sadaqadaas uu kaaga tirtiraya waa fawaa'ida sadaqada ay leedahay waxaa kaloo sadaqada fawaa'ideeda ka mid ah haddii haddaad siiso sadaqatu maaragtay arrixam dadka qaraabada ah oo kuu dhow waa adeerada oo kale eedada oo kale iyo dad rixm ah dadkaas raxmka ah oo kuu dhow haddaad sadaqada siiso taziidu fi lcumur waxay kordhinaysaa cumrigaaga wax badanaad noolaanaysaa intaas kaliya ma waxleen culammada qofku wuxuu ku noolaanayaa xayaah iimaaniya qof ahlul iimaan ahlu khayr ayuu noqonayaa sadaqada lama soo koobi karo waxaan ilaahi subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuuna waafajiyo bixinta sadaqada oo maalin kasta ah 10 bixi $20 bixi $50 bixi $100 bixi waad arkaysaa marihii markii way daba socotaa cajaa'ib sadaqa waxaa ka mid ahaa layidhi culamada xidheen waa waxyaalaha natiijadooda aysan soo daahin ama masiibaa lagaaga hortaagaya macnaa oo markiiba ilaahay subxaana wa taala uu kaa celinayaa masaa'ibta faraha badan hadda socotoo kale coronavirus ama markiiba ilahay wuxuu kugu bedelayaa khayr ilaahay subxaana wa tacaala waana suurtagal dib inuu kaaga dhigo laakiin inta badan sadaqada way soo degdegtaa khayrkeeda ama ilahay wuu ku kala qaybinayaa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo raxmadiisa isagaa yaqaano waqtiga khayrka aad samaysay oo ilaahay uu kugu abaalgudayo ilahay waxaan weydiisanaynaa tawfiiqda inuu na waafajiyo sadaqada bixinteeda ilaah na waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala kuwii jeclaada camalka khayrka badan samayntiisa ilaah naga dhigo khaasatan bisha ramadaan oo sadaqatu ramadaan oo ka khayr badan sadaqooyin kale ilaahna waafajiyo quraan akhriska ilaahna waafajiyo salaada taraawiix ilaahna waafajiyo oo guryaha in lagu tukado wardiga badan ilaahna waafajiyo ummadaasi oo dhiban meel kasto macal masaajidaha kuwii kaalmay ilaah naga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa wixii aan ku hadalnay oo khayr ah samayntiisa ilaahna waafajiyo si aan u noqono kuwa waxay sheegayaan oo dadka ay u sheegaan iyagana ku dhaqma inay faafiyaan kaliya maaha iyagana sameeya iyagii ehelkooda kuwaas ilaahay inaga dhigo ilaahay idin jeclaado ilaahay subxaana wa tacaala hortiina khayr ha dhigo gadaashina ilaahay khayr ha dhigo ilaahay subxaana wa tacaala ha idin nuuriyo qalbigina nuurul iimaan ilaah ka buuxiyo indhihiina nuurul iimaan oo wax ku aragtaan khayrka ilaahay idin waafajiyo dhegihiina nuurul iimaan ilaah ka buuxiyo oo khayrka aad ku dhegaysataan carabkiina nuurul iimaan ilaah ka buuxiyo oo khayrka aad ku hadashaan iyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala gadaashiina nuur hortiina nuur ilaahay ilmihiina idin xafdiyo ilmo baariyaal ah oo ahlul khayr ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay oo ahlul qur'aan ah oo khaasatahu ah ahlul xadiis wa sunna ah
والنبي تصالح كذلك المهاس إلهي دين وافجيه المين إلها كذلك المجعل كتابك إلهي برته حفظيه فهمه كل رقمه إلها كذلك المجعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام برته حفظيه كل رقمه فافيه إلهي باريال حكوض دقي المهن ودن وحي عاسياله إلهي باري حكوض دقي وحي بارئة إله أزيادي إلهي سبحانه وتعالى شرط ولا إله كما قالنا إله نقول شرطان كورونا فيروس إله كما قالنا حالنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام برصك نوع حنونك حرق قدع إيه حنونك مضح إيه حنونك جذانك إيه حنونك كورونا فيروس يوحي لمده إله كما قالنا إله وحمد سنينا إنه نوصل ديره dad fara badan ahlu khayr ah oo ilaahay u jecel yahay oo inay meeshaas aadaan cash oo markaasi ay bixiyaan 100 500 oo aysan sugin inta masaajidahaasi gacantay ka baxayaan ilaahu masaajidahaada dad u soo dirso ilaahu buyuuda dad u soo dirso ilaahu subxaanahu wa ta'aala baryana wax walba gacantaada ku jiraan hal maalna hal qof milyaneer ah inaad soo dirto yaa masaajidaha dhan u deen bixin karaa laakiin ilaahu waadna imtixaantay inaan hadalno oo arrintan aan faafino ayaad nagu imtixaantay ilaahu waxaad nagu imtixaantay inaanan aamusin oo ummadda aan xusuusino si loo tijaabiyo oo loo imtixaano iimaankooda ilaahu waxaad nagu imtixaantay inaan ogaano inaad ogaato anagana aan ogaano aad na tusto kee ah ahlu khayr kee ah kan mukhliska oo wax bixinayo lidaalika waxaa layidhi طبع الإنسان wuxuu jecel yahay al-akh insaanka inuu wax qaatuu rabaa inuu qaatuu rabaa dabeecadaha insaanka waxay diidan tahay wax la yiraahdo dafc inay wax bixiso insaanka oo dhan marka islaamka markaa fiiriso waxay baraysaa qofka waxa tabiicatul insaan waxaysan rabin lidaalika ilaahu nabar gacmaheena inay u furfurnaadaan sadaqada inay bixiyaan carabkeena in uu fudayd u noqdo quraanka xifdintiisa fahamkiisa digriga akhrintiisa ilaahu nabar indhaheena jeclaysay khayrka iyo quraanka inay fiiriyaan ay xifdiyaan ilaahu dhageena jeclaysay khayrka iyo wanaaga inay dhageystaan ilaahu xubnaheena jeclaysay khayrka iyo wanaaga iyo waxaad jeceshahay inay sameeyaan ay ku raali geliyaan ilaahu ikhlaaskana waafaji inta xanuunsan coronavirus ama xanuun kala haya ilaahu ka qaad ilaahu caawa ka qaad shifaa caajil ah ilaahu waafaji wax cid kastoo xanuunsan ilaahu xanuunka dhan ka wada qaad allahumma amiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh